soo dhawaada waxaan rabaa wax yariis inaan ka hadlaan rabaa waxyaalo badan inaan ka hadla ma rabo soo dhawaada waxaan rabaa inaan baasaboorka Soomaaliya maanta ka hadlo yarkii calanka gubay inaan ka hadlaan rabaa fartiin baan iga wadaa bal soo dhawaada horta dadka Soomaaliya hala ogaadaan ninka calanka gubay waa la hadlay dad badanna way la hadleen biribu soo sheegay uu soo gali doona raalibu ka bixin doona raaligelin ka bixin doona si u dhacaysa raaligelinta ma qan aniga raaligelinta ma u shaqeyn doonta ma shaqeyn doonta ma ogi aniga kulay raaligelin walba uu bixiyo waan ka codsaday in raaligelin bixiyo oo dadka Soomaaliyeed niyada u dhiso asaga niyada isku dhiso laakiin se meeshay raaligelintu gaari doonta ma ogi yarka calanka gubay raaligelintiis meelay gaari doonta ma ogi asaga isgubay horta mid ugu horeysa gubay baasaboorka Soomaaliya janal ooga lagama xigo calanka Soomaaliya janal ooga lagama xigo dhulka Soomaaliya asaga lagama xigo qof walba ra'yi u leeyahay sida u taageeraysa inaan la gubin buu asaga wuxuu u taageerayaa in la gubo ورأييسا ومسكحيسا ضعيف كوا تستي إنه جوبه مرك إن الله رحمه الله أو كتاب قرآن إنه جوبه لقد معهن إن وحو جوبي ورأييسو جوبي إن كلية واحد لو حكومين كرا إنه سعرك باسبور كصومالي يروح كصومالي وسكب حكرين إن باسبور لسيني أنتو نوريا أنت كلية باللو أرجودن كرا معهن إلا غالقيني إلا بربرتيو إنه يعني كريستيانو إركا صدعوا عن باسبور كصومالي جوبي باسبور كسجلها أصل عكر صباحي وجوبي كموسهلين بأن إكسباير بكرنا قضي waxaa isku dhiriyaa ma garanayo marka dadka Soomaaliyeed yaa loo caynin Soomaaliland yaa loo caynin Soomaaliland waa maamulada Soomaaliya kamid yihiin dad wadaada ku jira hooyooyin baa ku jira caruur baa ku jirta looma hadlaan baa ku jira dad aan raalli ahayn baa ku jira dadka waanta arkayseen wiil u dhashay Isaaq ba maanta wuxuu gubay baasaboorka ayaga isku yaqaan inay sameysteen buu gubay marka in laga xumado maaha anagu maana jawaabin hadaa maanta inta soo carartaan Soomaaliyiin baa la hadlaya dadka Isaaq aan ahayn baa la hadlaya haddii maanta intaas soo carartaan oo calalka Soomaaliland ay gubtaan waxa sharaf uga dhacdeen in calanka Soomaaliya waxa sharafta uga dhacdeen baasaboorka Soomaaliya waxa la mid dhigtay inuu kii qabiilka oo sameysteen iyo jamhuuriyadda ummadda Soomaaliyeed ka gees Soomaaliya luqadda ku hadasha haddii la mid dhigtaan calal yariis ay sameysteen calanka Soomaaliya iyo baasaboorka Soomaaliya hadaa la mid dhigtaan midkii Isaaq sameysteen anaga markaas waxaan noqonay dad dhulka isku jeeday waxaan noqonay dad bakhtiya waxaan noqonay inaan calankeeni iyo awoodeeni iyo jamhuuriyadda Soomaaliya aan la mid dhignay mid Soomaaliland ma ahan ina aflagaadina ma ahan ina ayna ma ahan ina u jawaabna ma ahan in la gubo calankooda ma ahan ayagu iska gubin hadii rabaan ayagu wax rabaan ha sameeyaan ayaga isku jawaabay dadka Soomaaliyeed yaan la gubin calanka Soomaaliland tawxiidka ku yaala xitaa hadii laga tirtiro by heart tawxiidka ku yaala waxaan ama laga reebin calanka wuxuu u taagan yahay inuu ku yaalo la ilaaha الله محمد رسول الله قفك جبنا وحلمت إنه جبي يان لو دوان يان باسبورك وحوي يقنا الجبين والرأي جود هدي قاتين حر قضان هدي سقاط إنه حر قرين هدي لا غاصرو هدان لا غاصنين أيجي أطلع ووح أيجي تبعسيهين مركن يان كصوماليا لا بربر دين عالن كإساق وسمايستين كصوماليا لا بربر دين هدي جبان يا هدي سجبين يان لو جوابين Somaliland dad ba aqoonsan inay go'do dad ba raba inay Soomaaliya ka go'aan waa ra'yigooda hadii go'aan alxamdulillah hadii go'ay waan rabbil caalamiin in la barbar dhigo aniga ma qabo in loo jawaabo ma qabo yarkaas kaliya waxa xukun looga dhigi karaa in Soomaaliya ka bixin baasaboor Soomaaliya la siinin wax kale oo inta ka bedel mare Somaliland hadii waa maamul Soomaaliya kamid ah qofkii cadow ku ah asaga cadow ku ah waa dad Soomaaliyeed ha ogaadaan dadka Somaliland dadka Isaaqa waa dad Soomaaliyeed waa dad Islaana waa dad nala dhashay hal shakhsi oo fayoowen oo jira in ku raaxaysa Somaliland ha noolaato ha jirto hawada ha gasho waa la jirnaa waa garab taaganahay waa dad Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid yihiin farmaajo madaxweyne u ah waa intaas kaliya dadka yaa laga waalin allow dhowr
dadka farmaajo taageersan dadka Soomaaliyeed taageersan dadka calanka buluuga taageersan annagu waxa u taaganahay nabad iyo nolol ba u taaganahay waxaan ka shaqeynaynaa nabadgelyada waxaan ka shaqeynaynaa dhig Soomaaliyeed la daadin waxaan ka shaqeynaynaa sidii Soomaalidu isku soo dhaweyn lahaa in calan yiriso qof shakhsiya oo carbaha laga soo tarxiiray oo calanku iyo baasaboorku ku aaday oo carabta ugu noolaa markii Hargeysa lagu soo celiyay oo jeexjeexay inaan la mid digno oo asaga isku meel afariisano waa lagu cadaabaya Soomaaliland ha noolaato رايك صوعتي ما يدعي وعتانك الله دور سومالان الله دور ولقي اعتراف ميلوسو انت سكسور جينا انا سومالان وتاغيرسنahay shicibka iyo dhulka iyo dadka wataagayrsanahay waa la jirnaa waa garab taaganahay waa intaas kaliya wactaanka yadaaya وعتانك باس يقداي إلهي براي نيكين وعتانك يقداي ونبري ضد داوريو ونبري وعتانك يقداي الله مصبح دور الله سومالان دور الله سومالي وين دور واساس الله دور ودا Soomaaliyeed ha ka xumaanina wadigiini wala fiini قبل ما عبي زماي الله سبحان دور الله سبحان دور الله سبحان دور الله سبحان دور يا علنكود لجوبين يا باسبوركود لجوبين حدي اعتراف هلان الحمد لله حدي اعتراف ويا رب العالمين أنك وحنا وسور جودنا الساقة إن سومالي لقى جرو كم سور جودنا ضدكاس كم سور جودنا عالم كيستان كم سور جودنا أنا محل يجري ماشي دقيقين كم سور جودنا إسلام مدود كم سور جودنا لغة سومالي كوالان الله سومالي لا دور الله سومالي دا الله هرجيس مقدشة كبلاري الله بربع محل يجري بوساس كبلاري الله محل يجري بربرة كسبان كبلاري يلو ضدكاس ضدك مو سومالي كدي يلو هربرك جارين أوسيادي يلو ربي يكون سومالي سكو كنا كدي يلو كو قلوبته سومالي سوجي كدي ما هنقف يريسا أو جيران أو حنوسان إن كل يودا جوابتان إن عالم كودا لجوا كسر جدا إن باسبور كودا لجوا كسر جدا وإن تاجرتان كلية وحوسر جستا سومال لما كان بقشير اعتراف كواحد يراسليه كسر جدا لكن إن نورادان إن بيعبان إن كرتلوسو داي إن هودا جلان إن تشينا كبطان وجود عيب يلو ربي سومال دور يلو ربي إسراع يلو ربي إسراع يلو ربي إسراع أمين تكرب وإنت تسكرية ما هنقف يريسا أو حنوسان أو باسبورك أسيالها يوحى كم مصورا لبل بيحوا كم مصورا باسبورك اللي بيحوا متليا وأنا كوفرته اللي بيحوا متليا وقوي باسبورك أو سجل متليا اللي بيحوا سجل متليا ولا عاد اللي بيحوا متقنا سكون ماضي اللي بيحوا حكومة ماضي تاريخ اللي بيحوا نشرية مد وحكومة محمد سياد بري إيطاليانك وحي أدرين إن اللباح سودلو لباح تذكر عنجله أو إيطاليانك بابيه أو عدانك بابا كنيه محمد سياد براد لي أصلاً تقارنك مش كم تنيشيه ولا بدأ باسبور كوكور اللي بيحيده كوكور مريشيه من إن بقرال صار كهر بوحب بابيه بقرطبي إثيوبيا يسومالي بوحب بابيه لباح ميل لا يحرس اللواي أو شيل لود اللي جرواي برجع عند واحد جبت قرية ساعة تقول له قع على سيو يعني بوحد لود فنجر اللباح قفل لا عرج بوف وصدعة قفل لا عرج واحد اللواي مركز من ننقل حاجة زادلي لباحي مركز لباحي أنا دتك عنجري أو بقرال صار أنا وقوي يكي محمد سياد برد ودلي لبدي بقى أصلاً تقارنك الله قديه لبدي واحد يقول شيء حتى الله يكبرك كم بحو إن أنا كسوعين أو والله هي إن أنا كوعي دورين تلفون كان قبض دورين بلوغ لو كوع دريا ما ترى يسوع عيسى وكل شيء يسوع بقراي حتى الله يكبرك كم بحو بلوغ بقوع دريا
حيسوون بكره حيسوون بكره ما دون ما عرر العقد ما يصير سا ما الناس ما يدي سا ما حيسووا عيسى marka Allah ku soo socayaan waxaan ii sheegay marka ninka asaga libaaxiisi asaga matalayo oo adeeradiis awowyaashiis magaca ay ku soo jiideen qof ay soo wacay waa ka qabanaa duu soo wacbal bal hay soo wacbal waa ka qabanayaa marka waxaan ii sheegayaa Soomaaliya ha saraacdo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto ma ahan in calanka iyo baasaboorka ay aqoonsan yihiin kuwa raba inay go'aan in la gubo aniga ka soo horjeedaa aniga raali kimi ihi taas wax dhici kara maaha taas Soomaaliya ka dhidhiso dadka qof khaldan in la khaldan maaha dadka Soomaaliya in la isku diro maaha dadka Soomaaliya waa in la isku soo dhaweeyaa dadka Soomaaliyeed saddex sano soo dilayay dadka Soomaaliyeed dad baa kala fogeeyay odayaal baa nagal gatay siyaasiyan nagal gatay annagu waa ina ka aqal roonaa ciyaalkan yiriiska oo arbaha laga soo celiyay oo cuqdada qaba oo raba in la daawado oo Facebook raba in laga daawado oo raba maanta sida looga hadlay in looga hadlo oo soo fikiray calanka iyo baasaboorka ummadda Soomaaliyeed uu gubayo oo isleeyahay magaca hala sheego yaan loo gubin calanka Soomaaliland yaan loo gubin baasaboorka ay amsan yihiin yaan loo gubin yaan dadka Soomaaliyeed waxa laga sheegin adiga dambi ha ku galin taada aakhirada fiirso qof walba ka ogow waxa ku socotid waxa tiraadid waxa ku dhaqaaqdid aakhiradaada bal aadaysa god 2 mitir ay gelaysa kaas bay kaaga imaanaysa iska ilaaliya dad Soomaaliyeed afkiina la aadaan inuu afkaaga inta laqo ku gasho biri kaaga imaado iska daay ninkaas kali wuxuu baayaa biri waa la hadlay horta waxaan ii sheegayaa ninkaas markii ahayd January Facebook is aniga ka xiray ma aqan meesh ka soo galay January markii ahayd this year hadda ku jirno wallahi ana ka xiray oo billaah ana ka xiray cadeynta dartan waan keenay January markii ahayd last year ana Facebook is ka xiray meelu ka maqnaa iyo meelu ka dhacay iyo wali kama sheekanin wali kama hadlin hadda haduu soo noqday oo hawada ku soo noqday oo wax fiican sii wadi waayo mar labaad markay dad badan raacaan haddana waa ka xiraya 20,000 iyo 30,000 baa raacaysa marka ka xiray dadka Soomaaliyeed soo ay jireen عقدت يعيل يعرو مركان كحرب بوسو قلي واي فيسبوك دون ولا واي فيسبوك دون كأمسي عيل بو أمغا حدو صنعدي حد الواحد أملا إن لقصو دبي إن عادي فيريو لقصو دبي أو لقصو دبي دت خاصة أمرنا يا أو إن دتك كلا أشياء أنت أمسنا ساس الله صدق معنا فيسبوك نكاس واسكت داي أنا كحري أنا أدي إنه صقره وحنا في صدق لما مربى لقى حري مركم إذا أنا جنور كحري جنور ديسي أنا حد كجرو أنا يا والله كحري أنا يا دعوة جود بي أنا يا الشر كدي أكون كيسي إن حدو صقر بري وأبولش بحي وحلاقيه إنه خصوقات عيل كيسة إنه شيء دور فيسبوك لقى حري درادس إنه باسبورك أوجبي عرفت مركي ليك يعني وتشيل على صاري كبعد تشيل كسب بحي أنا يا دير سودا كحري فيسبوك يسي أنا إلهي أود إيسي أنا دادعي أنا أودي إنه هالله أنا أفكيسي قبتي مقال كيس لبعض ويجوه الرينا ومت كانوا كوعيناي وباسبورك سومالي كوجباي أو تك سومالي كوعيناي ولا الدين مالها أو قبل يوم سجرو أو دقن مالين ودك Soomaali waa isku diin dadka Soomaali waa isku dhaqan dadka Soomaali waa isku af dadka Soomaali waa diri urkeeda waa dad wada dhashay adiga meel uga baxsanaysa hadaa Soomaali caydid hadaa tiraahdo Soomaalidu waa gaalo galba noqosa hadaa tiraahdo Soomaalidu waa midgaan noqosa hadaa tiraahdo Soomaalidu waa dad xun ma noqosa dadka Soomaaliyeed waa diri urkeeda wax ay ku kala bedeli malaha taariikh ahaan iyo history ahaan iyo meel walba ka wada maana Soomaaliya hal bood bay saarada meeshaas ku wada dhacayna badda ma wada liqaysa ama kulliga badda kurkiga saaraanayna waxa badda liqsi kara waa adigaagan jaahil waxba akhrin waxna qorin waa adiga raba in caalankaagi iyo jibsigaagi iyo wadannimadaadi iyo aqoonsigaagi shalay arbaha ugu tuugsanaysa gubaysid kaasoo kale baa wax u baahan Soomaali laga qabto kaasoo kale wuxuu u baahan Soomaali inay dhageysan kaasoo kale wuxuu u baahan Soomaali inay ogaato inuu yahay nina waxba kale ogeyn Soomaali waxa la yiraahdaa dameerka midka ugu dhuusada qormoon baa ugu kibir badan dameerada midka ugu dhuusan qarmoon ba ugu haraati kulul dameerada midka ugu dhuusan qarmoon ba ugu biqla badan marka ninkaas aragteen wax xumaasho iyo qabiil iyo qabyaalad ku jirto iyo hal lagu arko baasaboorka Soomaaliya oo shalay u gubay in wax laga soo qaado maaha in la tafo maaha kaliya xitaa hadii aan dhilaha deeqisood ولي ما أعرف هرتا أن عالك مكس كذا أو أن شيئان تولد هاي والله ما أعرف جعنا ليلة ولي ما صار سو ما قبنا أنا ساعة ما تابنين
maanta daa heli karo waa soo qaadi lahaa waan itusi lahaa ma gubeen waxba kuma sameeyeen dhibaato uma geysteen haddii aan gubo waxaan liiday sharaftii iyo awooddii iyo calanka Soomaali iyo jamhuuriyadda Soomaaliya iska leeyahay waan gubay meel baa uga dhacay waxaan la mid dhigay calan Ingiriis ay qabiil shalay sameysteen iyo kii Soomaali weyn oo adduunka la tartamay baa isku mid ka dhigay haddaan gubo marka ha u jawaabinina waxay raadinayaan qofka asagoo kala oo aqligiisa leh waxay raadinayaan calankooda in la gubo meeshaas ay noqoto inuu kii Somaliland iyo kii ummadda Soomaaliya oo isku mid yahay marka Kenya iskaga dheelay sharafteena iskaga dheelay waa isliinay waxa la mid dhignay in isku yihiin isku darajo نيت تذكر ده هي اللي قررنا واي إلهي يسوي أطلع هدو اللي قرروني يحي هدو واحد كريتي يحي هدو يا شخص اللي في عين السجى أطلع أنا كله والله الله رالي قلب يعني بحد رالي قلب دق عبيه وحنا عدي إن ما أوجي تستورك سومالي وإياه لجورو إياه لا ما أوجي إنه كو قرنتي يسكو قرنة قف كدمبي كجلا إن عالم كي باسبور كمود سومالي وحي ومتصدر ما أوجي لكن سو صوب باردونا لكن سو وحنا وش جا ولو وقبي قرال إنه وحنا قردونا قراله وسيرك الدستورك الصومالي قابل سن إن لو صدره حديقه صومالي عالم صومالي يجيبه هدو باسبور كصومالي حقوق يستو هدو دم بقرار وكجلا أو شخصيا أو وحيلين أيوه بل وحي عقابتي سن قنطة يعني مو هذا واحد تاي وعلى جهة إن عقابت أورد قرده باسبورك وكو قريه هاي وقفك جوا أنا وحدي لها باسبور هالود ديزو أبد يدون نولي هاي مثل الله ده يجين أوجي حنوصل لو شيء جاي إنه سب باسبور قاعدن ما قاعدن ملاين ماي نسوا ماليد أو دمير له أو حفيز فديه إنه على كصومالي أو إن باسبور كصومالي أنتو ويدستو إنه سين ملاين ماي إنه لاين أنتو أصل قالوا لا فصيح دون ملاين ماي أنتو عصدوا إلا سين هدي الله قصد قف كساسجا إنه كل جي دون ملاين يا marka waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in la isdhigeysto Somaliland hancinina Somaliland ha aynina Somaliland waxa kaliya ka hormaadaan midnimada Soomaaliya inay ku dadaashid waa dad Soomaaliyeed waa dad niila dhashay dadka naxsiinina aniga bariga hore xoogay waxa laga yaabaa in oo iqaatay Soomaali waa dad Soomaaliyeed oo fudud inuu fudud iqaatay oo si qaldan oo fasirtay Somaliland waa dad nala dhashay hal la ogaado waa dad walaaleyna hal la ogaado hadda dad waxa ka weyn heesta dhageysanaayo Somaliland hanolato Hello, door.
Soomaaliya ha noolaato. waxaa marka nii sheegaya jalan oogle markuu biri raali gelin bixiyo qofka bini'aadanka waxa qaldamin waa Allah kaliya qalday qof bini'aadan uu qaldami kara dad baa dad dila oo la cafiya baasboor uu gubay asaal cad kala soo baxay codad buu qabaa waa qof jaahila waa qof wax soo baran waa qof waxba kala ogeyn waa qof damiina waa qof faahi ku soo goray waa qof caafimaad taro ku soo goray waa ninkaas aragteen intii gabar wuxuu aaminsan yahay waxa loo yaqaano Soomaaliland ba aaminsan yahay ma aqaan inaa ogtiin in kaleeto waxa xirnaa 4 bilood buu xirnaa waxa loo xiray warqad buu raadsaday Sacuudi markii laga soo celiyay ba inqaamadii markii la soo celiyay waxa loo soo celiyay ba waxa lagu xukumay inuu mar labaad soo xariisto oo ku noqdo meeshu ka imaado Soomaaliya markuu ku soo noqday Hargeysa warqad baa lagu xiray oo dirsanay mar labaad in loo ogolaayo in Sacuudi ku noqdo maxkamadda loo diray gabar baa fadhiga waxa ku tiraahday warqadda u baahan tahay hadii ku sameynaysa maxkamadda waa Soomaaliland dhexdeeda warqadda u baahan tahay $10 baa laga rabaa $10 oo US dollar laga rabaa $10 soo qaadaal dhahay intuu soo baxay gabadhiyo meel fadhido camera isu ogeyn iyo video isu ogeyn buu ka duubay markaas wuxuu yiraahdaa Soomaaliland waa tuugo dadkii bay furanaysaa $10 bay qaadanayaan waa maxkamadii wuxuu soo ogeyn ninkaas maxkamadda in administration wax la yiraahdo uu jiro ma aan free maxkamadda free kuma furo Mareykan maxkamadda daa u tagtid 10 cent iyo $5 waxba bixinaysa administration waxa jira ninka wuxuu fahmi waayay asagoo Sacuudi ka imaaday oo jahilnimadii xoogaa la isdii jiro ka soo baabaysa oo dadka Soomaaliya uu dhaama meeshaas uu soo noqday Soomaaliland imaaday $10 maxkamaddu fahmi waayay administration laga rabay buu gabartii oo meel iska fadhido oo qof mas'uul ah oo dawladda shaqeynayso tuu dawciilay islaantan waa tuugo $10 bay qaadanaysaa way furaysaa markii la baaray maxkamadii oo dawladda gaar u noqotay oo la soo baaray ba waxa la ogaaday inay sax tahay gabadha shaqadii qabsatay $10 in warqadda lagu qaato in uu taalo maxkamadda waa la xiray ninka noocaas ah waxa wax ka sugaysan inuu aqli leeyahay inuu aqoon leeyahay inuu wax fahansan yahay inuu garaadkiisu intaas ka sareeyo waa qofka noocaas ah waa meeshu asagu taageersan yahay buu wuxuu ka soo duubay video sira maxamuud meel kale qabiilkiisii buu video sira ka soo duubay gabar islaamiyad oo meel fadhido oo loogu tagay in la soo duubo ayadaan ogeyn buu soo duubo social media soo dhaxgalay oo meel u badalay gabar wax la qabo oo marwe oo shaqaysanayso oo si qaabtar u fadhido si qaabtar u soo duubay ninkaas waxa leeyahay caalamka Soomaaliya gubay ninkaas biri markuu bixiyo raali gelinta markuu bixiyo yiraahdo aniga waa khaldamay ilaahay kaliya khaldamin qof bili aadan ahay bashar baahay baasboorka gubay haliga raalaado raalida waan iska qaadanaynaa eray ka soo baxo waan iska qaadanaynaa laakiin qulub ahaan waan ognahay wuxuu sameeyay waan ognahay meeshu naga joogo waan ognahay wuxuu ku gacay Soomaaliya la iskama daba xari karo qofkii la iskama daba xari doono qofkii qof dilay qofkii khiyaano qaran ku kacay qofkii raba inuu Soomaaliya kala jiro Soomaaliya maalin bay ka soo noqonaysaa maalintaas ayuu Soomaaliya cadaalad mutaysan doona inta ka horeyso qof Soomaaliyeed qof ka awood badan ma jiro aniga waxa laga yaabaa in laftigiyan maalmo aan soo gala live-ka ina waxyaalo khaldan ku hadlay waan ka shalaaya waan iska ilaaliyaa inta badan waxa isku dayaa inaan u xaqliyo si wanaagsan in lii arko oo masawir wanaagsan dadka Soomaaliya iga qaataan oo meel wanaagsan aan Soomaaliya ka helo oo dhinac wanaagsan aan ka galo waan iska ilaaliyaa inaan laqab ka galo waan iska ilaaliyaa inaan khiyaano qaran galo waan iska ilaaliyaa inaan qabiil ku diro maalintii qabiil uu isdilo oo meel balaayo ka taaganta waa ka gaabsan live ma soo galo waan ka carara marka ma ahan inaan عيدان Somaliland ما هن عانك Somaliland لوجو ما هن باسبورك Somaliland لوجو وحي أمسي إنه جوان هدي جوان الحمد لله ودن درسة أو Somaliyeed أو ولكن كأنه ندرس النقلية هدي سجوينا إن وإنا سودو سنو سرسرنا أو إن Somali سي مارتي السكول سودوي مركي وحنا سميان وحف يعني أيجا عن تصنو إن وحالي له قفك حن إن محل يجري your enemy وحلا تصور لوقس له هدو سول بوحي هاي شركة في عمبالة تصور إن كلام حد هذا يكيل وتسمايل قصب قفك اللي جودله قف كان واحد اللي جودله أمان هدو حياه ونقبل اللي بدله هدو خلديه هاي ونقبل اللي بدله هدو أصله سي خلد أسعنا ونقبل اللي أسعسيه ما هينا كده وايدونه وحواي عنك بكتير قفك أمس Somaliين واحد يراه كبيحينه كان أقول باسبورك كبيحينه عنك Somali كبيحينه دولك Somali كبيحينه رأيي سوي كاتوست إنه جوه وتيسه
marka inaan ka maseerno oo niraano waa waray muxuu u gubay nin gaala ma aha waa nin Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu qaato xaq buu u leeyahay inuu gubo xaq buu u leeyahay inuu mudaharaado xaq buu u leeyahay inuu ka hormaado xaq buu u leeyahay asoo qaawan buu dhashay asoo wuxuu dhashay xornimadiis inuu yeesho oo Soomaaliya waa dal dimuqraadiya ma ahan in lagu degdego laakiinse muxuu ka qabaa dastuurka muxuu dastuurka faray calanka Soomaaliya waxyaalahaas waa inay isweydiisaan maaha in lagu degdego qofkan ma waalan yahay masaxan yahay ma khaldan yahay marka dastuurka uu noo sheego ka bacdi ka fikir karna qofkan wuxuu galayo dadka ku tagday ninkan waa laga roonay ninkan carabta lagu soo kursaday ninkan carabta tahriib ku galay ninkan waa la farxumeeyay calanka Soomaaliya qof la farxumeeyay oo carab lagu soo kursaday saas qof codad u qabo u gubay dadka dhahay way khaldan yihiin ninkan waxbuu tabanaya wuxuu tabanayo buu calanka u gubay dad badan baa la aaminsan kaligiis ma aha waa inaan dadkaas aan ka reyno oo wax fiican oo warayno oo ku bedelno ma aha inaan Soomaaliland ayno wadaadeen leeyihiin dumar bay leeyihiin aab bay leeyihiin walaal bay leeyihiin wada Soomaaliyeed nala dhashay maanta waxay leeyihiin dad bay qabaan Soomaaliyo dhan baan la dhaysay haddaan nahay isaaq marka waa in haddii la soo laayay 88 la soo laayay 2018 aan marayno ma aha in xumaantii lagu laayay iyo samaantii lagu laayay inaan wali taba taagna maaha waa inaan ugu bedelo wixii wax ka fiican inaan marino waa inaan u dhashdaashno waa inaan subag u marino waa inaan u shalayno waa inaan u qosolo waa in wixii raadinaya bedelkeeda aan siino waa inaan wanaag u badino ka bacdi waa heli karnaa ma ahan wulwul ku taag Soomaalidu waxay taqaanaa wulwul ku taag ninkaas wuu khaldana okay waa dhamaatay billahi tawfiiq ninkaas wuu khaldana soo hanuunino ha soo ceshano hadaa maanta la tirsano wuu naga raayay haddii calankeena buluuga aan la midigno calalka isaaq samaysteen waa naga raayay haddii baasbooran aduga laga qorsanayn oo xitaa laga aqoonsanay bulciyaha Hargeysa haddii baasaboorkii ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee boqolaalka kun oo sano soo shaqeynay haddaan la midigno calan shalay la sameeyay baasaboor shalay la sameeyay oo warqad ay samaysteen laba nin oo tuuga oo jeegan ay samaysatay baasaboorka Soomaaliya haddaan la midigno gubno waa laga raayay waxyaalo badan waa inaa fiirsan waxyaalo badan waa inaa ka xiraysataan Soomaaliya han isku soo dhaweeyo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto heesta ku soo xireenaa heesta Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto Soomaaliya ha sraaco ninka halban ayaa dhalay heestaas ku soo gabagabeynina taas iga bartaaniga Somaliland yaan lagu degdegin wada Soomaaliyeed wada nala dhashay wada walaalaheena waxbay tabanayaan wixii tabanayaan inaad sii xumeena maaha waa mid aniga aamsanahay waa in aniga ugu daytaan wadadeeda soo raac Soomaaliyeed dadka u nacab in Somaliland jirto waa xaasid Puntland waa aaminsan tahay Kismaayo waa aaminsan tahay Cadaado waa aaminsan tahay Muqdisho waa aaminsan tahay saasna Somaliland waa qoso laakiinse midnimada Soomaaliya waa lama horaan maxaa ku dhaw hadalka ma hadash وشغالين وايي